inay sax tahay booliska in xagga civilianka iyo rayidka dib loogu celiyo la abuuro maxaan ku rahdaa hay'ado booliska ka madax bannaan oo kor joogteeya shaqada uu boolisku inoo hayo taa parallelena booliska daryeelkooda iyo intooda iyo noloshooda sidii ummaddu ay u kafaalo qaadan lahayd run ahaantii ay xooga ay saarto marka runtii taas weeye siyaasadeeda ku waajahan ciidamada iyo arrimaha booliska militariga iyo booliska aad baad u mahadsan tahay xog haye waxaan siinayaa Sabaax Ibraahim Sabaax soo dhawow adigoo soo koobaya weydiintaada haddaad i maqlayso وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد يرى والله وانكم مقليا والدي السلام دمانتين أدقي يا أصحابتك لا يمشي كترته آد بان ندوهي حكي قدر نسنا آد بان سلام يا سؤال عن قبا وحي تاي سؤال سأسي دير معها حكي قدر وحن ويدين لها waxaan rajaynaynaa in kursiga madaxtooyada lagu guuleysto maamulka Somaliland ama waqooyi galbeed waxaan doonayaa inaan weydiiyo bal fikradda ay xisbiga maamulkiisa sare iyo madaxdu ay ka qabto qofka lagu arkaa calanka yar ee buluuga ah ee magaalada Hargeysa dhex maraya ee maamulada kala dambeeyay ka hadda jiray iyo kii ka sii dambeeyay ee sida cadowtinimada ah carruurta yar ee lagu arka marada yar ee buluuga loola dhaqmo xisbigooda muxuu ka qabaa xisbiga wadani muxuu ka qabaa waa su'aasha koowaad tan labaad ee qabana waxa weeyaan in badan baa lagu soo celceliyay in la furo storka yare la sameeyay halkan yaala maxaan ku dhahdaa kaasoo inta badan aan barigo dhan inta ugu badan aan gaarsiisanayn waxyaabo fara badan ay aad uga maqan yihiin marka si deeply loo akhriyo ama la eego ay ahayd wax dad intay iska soo malmaluuqdeen una email iskaga rideen ma laga yaabaa in xisbiga wadani markuu madaxtinimada ku guuleysto uu storka dib u furo wad mahadsantiin dhamaantiinba Sabaax wad mahadsan tahay intaanu xogayuhu ku jawaabin waqtigoo ciriiriya dartii waxaan doonayaa inaan calina ku xijiyo cali soo dhawow cali axmed soo dhawow waan dhawey maxamed bakayle aad baan kugu salaamaya adiga iyo akhyaarta kale ku jirta oo xogayuhu ugu horeeyo waa la calaaninaya siyaasiyiin Soomaaliya waxa la lahaa siyaasiyiinta koonfurta clubhouse-kii bay ka doodayaan discussionskoodii elections iyo doorashooyinkii murankii bay ka hadlayaan kuwa Soomaaliland maxay baa haysto oo dadkooda u imaanayeen marka xogayuhu hadduu noqdo qofkii koowaad ee kusoo dhiiraday ee dhalinyarada waqti la qaato aad baan ugu hambalyaynayaa xogayaha waxaan weydiinayaa waana lagu soo celiyo su-aasha wada hadallada Soomaaliland Soomaaliya iyo calanka buluuga iyo su-aal noocaasa xisbiga wadani 2016 gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo berigaas murashaxa Muuse Biixi haddana madaxweynaha ah wuxuu ku eedeeyay maalin warqad ilaa hadda aan la hubin oo laha waa samays laakiin xaqiiqada aanan garanahayn in xisbiga wadani uu xiriir la leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliya oo wada shaqeeyaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye xilligaas Muuse Biixi murashaxna ahaa shirkeed buu ka qabtay wuxuu yiri xisbigaas waa khaainul wadan gaar ahaan gudoomiyaha xisbigaas waa khaain oo Soomaaliweyn ayuu la shaqeystaa dhowr sano ka bacdi maalin weydii madaxweynaha Somaliland waxa uu meel xabaalo dhakadeeda ka sheegay in nin ka mid ah madaxda Soomaaliya uu yahay nin hiirooya oo u dhigma xilligii Siiraayi halgamiyeen Ismaaciil Cali Abukariyo marka xogayaha qadar uu ka jawaabay Facebook-kiisa qoraal buu ku soo qoray laakiin waxa loo arkay in aan ahayn jawaab waafiya gudoomiyaha madana xogaye gudoomiyaha xisbiga aad ka tirsantahay xogayaha ka tahay oo ahaa qofkii lagu eedeeyay khaayinka lagu eedeeyay Soomaaliyeynta isla qofkii ku eedeeyay oo khalad weyn oo la wada arkaya sameynaya miyaanay qurux badnayn aanay u muuqanin in gudoomiyaha wadani uu negligence sameeyay dayacaad inuu jawaab waafiyo shacabka Somaliland isagoo ka siiyo isagoon colaadna u qabin Soomaali kale inuu yiraahdo waxaan anaga lagu dhaleecaynayay mala awaalka ahaa isagoo ruma ayuu maanta sameynaya madaxweynaha Somaliland marka miyaan loo arki karay fursad weyn oo siyaasiya oo waliba Soomaalida ah oo Soomaaliya wax naga dhaxeeyaan waliina kala bixina inuu gudoomiyaha wadani dayacay ma muuqan karta arrintaas mid kale maxay idinka meel yaalaan bulshada Soomaaliland aad ka qancisaan su'aasha soo noqotay ah xisbiga Soomaaliweyn buu u janjeerayo xilli leeyahay siyaabad bulshada uga qancin kartaan Soomaaliland ee u baahan in laga qanciyo aad baan ku salaamay xogayaa waan ku dheereeyaa hada
aad baad u mahadsan tahay labadaas su-aalood isku sidkanaad moodo inaad dariiqooda marayaan baan khadar xogeyaa kusoo dhaweynaya xogay soo dhow aad baa u mahadsan tihiin sabax su-aasha koowaad aad iyo aad bay u mahadsan tahay runtii annaga waxaa naga go-an inaan shuruucda somaliland ixtiraamno rule of law markaas shuruucda somaliland waxaana dhigaynin insha allah cidna kuma qabsan doono cidna kuma xidhi doono cidna kuma fogeyn doono wax kasta oo laakiin shuruucda somaliland ay dhigayso dee inaanu fulino aanu ku shaqayno run ahaantii waa waxa aanu dowladnimada iyo inaan wadankan hanana aanu doonayno midna run ahaantii waan sixi lahaa dastuurka yar dastuurka somaliland anigu waxaan isleeyahay dastuur yar maaha waa ka maanta somaliland inay halkaas soo gaadho ay ku kala socoto keenay waa run waxa weeyaan mar kasta oo ummada ay dhigato heshiis bulsho dastuurku wax kale maaha waa heshiis bulsho mar kastoo ay ummada heshiis bulsho dhigato heshiiskaa bulsho waxa weeyaan dee bini aadan baa layahay oo nolosha isbedeli karta marxaladda isbedeli karta maraykanka haddaad maqashay founding fathers mar walba amendment baad maqashaa sababta amendmentka marka la sameynayo loo sameynayana waxa weeyaan in baahida iyo nolosha markaas la taagan yahay shuruucda wadanku haddii aanay ka jawaabahaynin amaba heshiiska bulsho aanu ka jawaabahaynin lagaga jawaabo marka waan qabnaa in la gaadhay xilligii qodobo ka mida dastuurka dib loo eegi lahaa maxaan ku dhahdaa in heshiiska bulshada somaliland loo eegi lahaa maxaa ka maqan qiimeyn lagu samayn lahaa maxaa u baahan in lagu kaabo laakiin run ahaantii qiimo weyn ayuu dastuurka somaliland leeyahay waana ka nabadda iyo wadajirka somaliland uu salka ku haya marka taas inaan xasuusnaana aad iyo aad bay muhiim u tahay talabaad cali aad iyo aad baan cali u salaamayaa waxa run ahaantii dowladda hadda jirta amaba xilligii ololaha madaxweyne muuse bixi dee wax badan oo uu xisbiga ku dhaleeceeyey amaba laga yaabo in qaar dowladda ka midiba ay haddaba xisbiga ku dhaleeceemiyaan ayaa jirta annagu waxaan doonaa dhaqanka noocaasa inaan bedelo dhaqanka ah maxaan ku rahdaa qofkaasi waa ku eedeeyey waxaan isleeyahay dhaqan siyaasi oo sax ah oo mujtamaca horumarkiisa iyo horu socodkeena ka shaqaynaya maaha waa run waxaan qabnaa siyaasiyiinta kasoo jeeda somaliland soomaaliya jooga inaan la kala dhaweysanin in aan maxaan ku dhahdaa loo kala abtirinin in loo arko dadka reer somaliland ka fikrad duwan doortay inay halkaasi tagaan aan lana cayn maxaan ku dhahdaa haddii la qancin karo la qanciyo laakiin aan midna la amaanin maxaan ku dhahdaa midna aan dee la fogeynin waayo sababtoo ah iyaga dhexdooda wixii doona ha ka dhexeeyo oo ha ku kala duwanaadaan laakiintiise hal siyaasad oo isku mida bay ku shaqeynayaan oo ah somaliland soomaaliya dib ula midowdo inta halkan joogtaana ta ay ka midaysan yihiin waxa weeyaan somaliland inaanay soomaaliya dib ula midoobin ay goonisitaageeda iyo dowladnimadeeda ay gaar maxaan ku dhahdaa u hanato markaas kuwa u kala abtirintooda iyo soo kala dhaweysigoodu qofka sameeyey ayuunbay ceeb iyo nusqaan ku tahay oo run ahaantii ay hoos u dhigaysaa macnana ma samaynaysa markaa annaguna inaanu tallaabada ay qaadeen maxaan ku dhahdaa oo kale aan qaadno madaxweynaha guddoomiyaha xisbigu waa ka character duwan yahay waxaanan aragnaa inuu yahay characterkii saxda ahaa ee wadanka maamuli lahaa character dulqaad leh character xamil leh character dhaliisha dhegeysan kara character lala doodi karo character wax loo sheegi karo character go-aan qaadan kara marka run ahaantii inaan idhaahno in la yidhaahdo mimigare oo muusa saa samayn jira adna maxaad saa u samayn weyday run ahaantii anigu fikradaha noocaasa aad iyo aad baan uga soo horjeeda waa xaqiiqa dad badan oo aan lahayn maxaan ku dhahdaa garaad siyaasadeed oo buuran inay marka ay wax kaloo ay xisbiga ku eedeeyaan amaba daliil kale u waayaan ay yidhaahdaan soomaali weyn ayuu xisbigu ku lug leeyahay iyagoo aan haynin
wax runa ama xaqiiqa ah oo ay maxaan ku dhahdaa in badka in soo dhigaan marka inuu anaguna dhahna iyaguna Soomaali weyn bay ku xidhan yihiin run ahaantii in macna ma sameynayso waa inaan proof gareyno inay been sheegayaan mujtamacana aan ahayn in been loo sheego waxaanu ku tartamaynaa ay siyaasad noqoto sidii dalkan loo hagaajin lahaa ay noqoto laakiin been iyo isu jabhadeyn iyo mu'aamarad iyo sheekooyinka aan ka gudubno oo aan si civilized ah oo ilbaxnimo ah u doodno wax isu weydiino inagoo aan isnacbayn oo isjecel oo meel wada socono aad baad u mahadsan tahay mudane xog haye waxaan soo dhaweynayaa khaalid maxamed cabdi khaalid solo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضد ما محمد من مغلسة si wanaagsan baan walaalkuu maqlaynaa soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضد سلام يا مركو هوري حكايها يا عبد القادر يدله يا تيم كله إنه ولا سجن مدرسة waxaan jeclaa mawduuca in inta badan waxaad moodaa su'aaluhu inay ka baxayeen mawduuca aynu ku soconay oo ay isu rogeen su'aalo ku saabsan siyaasad iyo aragti xisbi laakiin mawduuc in loo soo yara noqdaan inta mikrofoonka heli doonta kula talinaya mawduuceenu haddii aan ku noqdo wuxuu ahaa doorka aqoon-yahanka ee hogaaminta iyo ka qaybgalka siyaasadda marka xogay khadar anigoo u mahadnaqaya saaxiibkay waxaan weydiin lahaa sida aynu ka warhayno markaaynu Soomaaliland ku sugannahay siyaasiyiinteenna ama hogaankeennu waxa soo saara oo soo dhisa cid inta badanna abaal ciddaasi u soo gashay ayay gudaan oo xilalka ama hogaaminta waxa lagu helaa cid xisbi ka soo tirsanayd imikana axsaabta inteeda badan waxa lagu joogaa amaba lagu faanaa oo meelaha marka ay xubnaha xisbiyadu ka hadlayaan sheegaan inay yihiin rag wax u soo huray ama dhiig ama naf ama hanti whatever waxay doonaanba ha ahaatee marka haddii aynu ognahay in bulsho ahaan waxa kor inoo qaadaya waxa inoo taraya waxa inagu soo kordhinaya ay tahay in la helo dad aqoon leh oo ummaddan haga kaalintaasi marka ay jirto gaabka noocaasi ahi sidee baad isleedahay marka way dhalinyaradu ama aqoon-yahanka bulshadu u heli karaan platform ama qaab ay kaga qayb geli karaan siyaasaddii iyo hogaamintii iyaga oo u madax bannaan su-aasha labaad aan xogayaha weydiinaya waxaa weeye inta badan waaqiceenna haddiiba ay dhacdo in qof aqoon leh hoggaan ama xisbi ha ahaado ama xukuumad ha ahaado ee looga dhiibo inta badan way adag tahay anigoo aan isku wada qaadayn in qofkaasi aragtidiisii ama qofkaasi isbeddelkii uu doonayay inuu ka dhex sameeyo deegaanka uu galay oo inta badan waxaa dhacda inay qofkaasi ay xakamayso ama dabar u noqoto waxyaabo kale oo ah inuu ka ag dhowaado uun ciddaa hoggaanka ah inuu ciddaasi raalli ka tahay laakiin la iska hor dhimanayo mararka qaarna haddiiba qof xil haya ama xisbi ha jooga ama xukuumad ha jooga ay ka soo cawdaan reerkoodii isagoo shaqo qaran haya oo labada kaalintu doonaba ku jira haya in qofkiiba xilkii laga qaado isagoo si wacan wax u wada aqoon-yahanka laftiisu waa inuu ileen xor ahaado oo aragtidiisa practice garayn karo awood la siin karo sidee loo heli karaa platform noocaasa xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo hierarchy ka hooseeya ee nidaamyadeena ku dhisan yihiin aad buu mahadsan yahay bakeyle xogayaadna aad baad u mahadsan asalaamu calaykum waa tahay khaalid aad baad u mahadsan tahay eelka case waxaan ka cudur daaranaynaa mar kastoon refresh samayno way isdhaafdhaafayaan asxaabtu soo dhowow adigu imika laba su-aalood aynu isugu raacino xogayaha soo dhowow aad baad u mahadsantahay walaal bakeyle meel baan ku yar degdegaya marka waxa la horta balintaada sii tuuro linka maadaama ku jiray wuu mahadsan yahay xogayaha guud iyo xogayaha gaarka ah ee mudane cabdiraxmaan cabdiqaadir iyo bakeyle qof walba madasha joogana mansabkiisa iyo martamadiisa ku salaamaya haddaan su-aasheeda usoo laabto laba su-aalood isku sidkan baan qabaa xogayaha iyo topic wuxuu ahaa aqoonta iyo arrimaha la xidhiidha iyo sida laysu waafajin lahaa aqoonteena waxayna tusaysaa marka imika xisbiyada laga hadlayo khadar oo kale oo qof aqoon-yahana mar kasta oo hadlaya academic baad hadalkiisa ka dareemaysaa maadaama xisbigii ku jiro xisbigu markuu ordayo xisbi mucaarada uu yahay
action ahaan hoggaankiisa cidda haysa siduu hararkiisku u shaqaynaya u kala sarreeyo waa inay ka muuqataa oo wuxuu ku tusinayaa tusaale dhaba sidii berritooda xukunka u maamuli lahaa waddanka iminka tusaale ahaan anigu minnesota ku noolahay xisbiga dimuqraadiga dadka taageera baan ahay waa ka dhex arka aragtidayda intayna oo iman xisbiga uunu hogaaminaye unu iman Biden oo kale waan ka dhex arkayay marka haddaan usoo noqdo su-aashayda gondodhaceeda waxa weeye xisbigan iminka wadani oo xisbi qarana waxa ka jira guddoomiyihii xisbiga waxa ka jira guddoomiyihii ku-xigeenkii xisbiga xoghayihii guud xoghayihii gaarka hararkii noocaas oo xisbiyada badanka adduunyada raacaan ayaa ka jira which is good laakiin muddadii ugu dambeysay laba taytal baa kusoo biiro oo hogaamiyaha xisbiga ah iyo ka kumeel gaadhka ah waxaan jecelahay khadar inaan weydiiyo aragtidaa dad badanina way qabaan aqoon ahaan xisbigiinu siduu isu waafajinayaa labadaa taytale soo kordhay maxayse shaqadooda rasmiga ay si guud haddaad u taaban karto aqoonta xisbiga marka laga hadlayo ay u soo gelaysaa maxaa yeelay beritoole haddaad iminka qaadataan oo tidhaahdaan waxaanu ka dhex aragnay shaarkii dadka aanu codka ka doonaynay reer somaliland dee beritoolena kolley isla shaarkaasun markaa xukuumadda timaadaan ayaa soo bixi doona oo ah in cid gaara lagu raaligeliyo ama cid gaara cod lagaga helo shaarkii aqoonta waxaad moodaysaa inuu yaraanayo iminka tusaale ahaan waqtigii xukuumaddii axmed siilaanyo markii ugu horreysay 2 sano ugu horreysay 21 wasiir baan filayaa iyo 5 wasiir ku-xigeen oo maasha Allah baa lasoo magacaabay si wanaagsan buu u shaqaynayso dadka maxaad sheegay haddana markii dambe dad badan baa dhalisanaayo wax runa ka sheegay waxay ahayd shaarkii dadka isku toleen marka horena shaarkii caadiga ah bay isku toleen marka bal taa noo yar micnay su-aasheeda labaad oo isla dhinac kale ah xisbigu tusaale si aan sheegay dhanka dhalinyarada marka laga hadlayo 100% way ku ammaanan yihiin inta frontline-kana dhalinyar badan baa ku jira waa wax aad loogu sacabtamo aad baan u hambalyaynaya waxaan jeclahay inaan doorkii hablaha bal in yar ka idhaahdo oo cadaaladdu waxay ka bilaabantaa qof kale markaad u hadasho adaan waxaagii doonayn anugu kolley nin baanoo meelahaas iska ororda laakiin xisbiga frontline-kiisa marka laga hadlayo wax habla ah ama mid baad ku arkaysa amaba kumaba arkaysidba faadimo siciidoo kale way ordi jirtay saan xasuusta laakiin inba xisbiga kama tirsana doorkaa hablaha iminka haddaydaan tusin idinka oo mucaarada oo codka doonaya oo ayna frontline-kii dadkii xisbiga ama mansabkiisii ku hadlayay ayna ahayn beritoole markaa xukuumad noqotaan oo wixii aad rabteen baa hesheena codkii ummadda ah sidee baad ugu dhiiranaysaan inaad soo magacoodaan xukuumaddiina ay habla ka tirsadaan in wasaaradda qorsheynta un sida iminka xukuumaddan ka jirto kale ayadaan u tuurinaan wasaaradda qoyska labadaas su-aalaad baan kusoo koobaya aad baa u mahadsantiin dhammaantiin waa tahay xogaya soo dhawow aad iyo aad baa u mahadsan tihiin haddaan run ahaantii khaalid ku horeeyo waxay ahayd un guud ahaan su-aashiisu sidee bay dhalinyarada aqoon-yahankii ay uga qayb qaadan kartaa siyaasadda artu maanta dhalinyarada waxa hortaagani maaha structural maaha waxa weeyaan duruufo way jiraan oo qofkii markuu jaamacad ka qalin jabiyo de wuxuu doonaya inuu noloshiisii siduu u daberi lahaa uu dabero oo bahalayo oo wadamada kale ee dunida waxay nagaga fiican yihiin qofku markuu jaamacad kasoo qalin jabiyo waxaa laga yaabaa inuu MB u shaqeeyo amaba xildhibaan u shaqeeyo wadamada hadda aad joogtaan iminka ilka casa ka hadlayo maraykanka oo kale iyo waxaa laga yaabaa qofku markuu degree soo sameeyo inuu u shaqeeyo nin siyaasi oo researcher u noqdo ama advisor u noqdo ama ninkii xildhibaanka ahaa oo MP-ga ahaa ayaa laga yaabaa inuu leeyahay intaasoo researcher marka qofkii sidaasuu siyaasadii kusoo gelaya saasuu ku barbaaraya saasuu ku shaqeynaya isagoo noloshiisiina maxaan ku dhahdaa dabaraya laakiin inaga duruufteena nololeed caqabadaha ugu waaweyn ee taala waxa weeye qofku markuu jaamacaddii kasoo baxay uu degree soo sameeyo dee noloshii kale oo ballaaran baa sugaysa inan iyo inan maxaan ku dhahdaa kay doontaba ha ahaato incentive noloshiisii dhaqaale kabayana xisbiyadii iyo siyaasadii qofka markiiba kama dhexarkayo marka harto kow waxa run ahaantii asaasiya in ay dowladnimadu amaba institutionska dawliga ah iyo dadka budgetka qaranka qorsheeya ay ku daraan mathalan shaqada baarlamaanka oo kale asaas bay u tahay inuu yeesho dad researchers oo xildhibaan kasta uu yeesho cid researchers oo wax soo baadha oo marka mushkilad xildhibaanku uu ka hadlayo aanay wixiisu golo ka fuul noqone wax de uu fahamsan yahay oo xog rasmi ah ka keenay oo la soo diyaariyay oo laga soo shaqeeyay ay noqoto aniga waxaan arkaa taasi inay fursad weyn haddii ilaahay raahdo insha Allah
siin doonto dadka da'yarta ah inay qayb ka noqdaan siyaasadda iswaafajisana inuu qofku siyaasaddiina ka shaqeeyo oo uu ku dhex barbaaro noloshiisiina uu daberi karo waxaa kaloo run ahaantii iyaduna aad iyo aad u muhiima dad badan ba activism kasoo bilaaba siyaasadda inuu qofku wuxuu aaminsan yahay u ololeeyo oo uu isu taago maxaan ku dhahdaa waqtigiisa uu firaaqada leeyahay oo waqtina shaqaysto waqtina qayb ka noqdo siduu kor ugu qaadi lahaa mabdii uu isagoo aaminsanaa taa waxaa wax badan hortaagan siyaasadaha dowladaha reer somaliland ee kala dambeeyey oo qofka haddii activistiga ahi aanu iyaga dantooda u adeegahaynin culays saara culays dhaqaale saara ka joojiya ciddii u shaqaynayay la xidhiidha u diida qofkaasi inuu kala saaro fikraddiisa iyo halka uu maxaan ku dhahdaa ka shaqaynaya annaguna runtii diyaar baan u nahay maanta on record iga qora hadalkaa meel noo geliya haddaan anagu dowladnimada nimaadno qof wuxuu aaminsan yahay amaba fikraddiisa uu ku shaqaynayo ee uu ordaayo kuma xidi doono oo maxaan ku rahdaa kuma qabsan doono haddii ilaahay yiraahdo insha allah waayo sababta ah qofku isaga oo shaqaysanaya oo waqti shaqaysanaya ayuu waqtiga kalena wuxuu aaminsan yahay iyo mabdu aaminsan yahay siduu kor ugu kici lahaa uu maxaan ku rahdaa ka shaqayn kara marka taasi waxay fursad siinaysaa qofku inuu platform helo dhalinyaradii ay soo dhiirato meelaha ay ka hadasho hesho meelaha ay fikradooda ku cabirto hesho iyagoo aan cabsi ka qabin inay arrintaasi saameyn ku yeelan doonto maxaan ku dhahdaa noloshoodii taasina runtii waa qayb kaloo ka mid a ta kale ee runtii iyaduna muhiimka oo dhalinyarada caawin karta waxa weeye qofka dhalinyarada ahi inuu xornimadu qofkay ka bilaabantaa inuu qofku waynu ognahay maanta mushkiladaha ugu waaweynayna haysta qabiilka ka mid a maaha waxaynu dafirayno waxaynu maalin gudaheed kaga bixi karnana maaha laakiintiise in la helo dad dhalinyara oo qab iyo han leh halka ugu sarreysa ay u joogto iyo somalilandnimo iyo ummadnimo iyo qarannimo ay u joogto oo ka bad qaba oo ka caafimaad qaba xanuunka iyo viruska maxaan ku rahdaa qabyaaladda laakiintiise inta ay tahay maxaan ku rahdaa marka dadka lala wada joogana waxaan ahay nin aqoon-yahana oo dhalinyaro ah oo wadanku inuu hagaaga doonayo hadhow marka la faqayana inta reerkayga danta waa unba anigana idana labadaa mabda islama haysan karayaan islamana qabsan karayaan mana maxaan ku rahdaa wada socon karayaan marka runtii taa intaasaan kaga bixi lahaa ilkaase isna runtii aad iyo aad buu u mahadsan yahay kolleyba marka structure la samaynayo institutionku intuu doona ha leegaado noocu doonana ha lahaado structureka loo samaynaya waa inuu baahi uun ka turjumo maxaan ku dhahdaa halkaa taala baahidu way noocyo badnaan doontaa institution way noocyo badan tahay institutionska qaar baa horizontal laga dhigaa qaar baa vertical laga dhigaa maxaan ku dhahdaa qaar baa departmentskooda la badiyaa qaar baa departmentskooda lasoo koobaa institutionka sababta waxaa loo samaynayaana waxay ku xidhan tahay in contextka uu ku jiro iyo baahida uu markaasi maxaan ku dhahdaa ka jawaabayo baahidaasi ha noqoto resources iyo sidii loo maamuli lahaa ha noqoto maxaan ku dhahdaa siyaasad ha noqoto laakiin structureka waxaa had iyo jeer abuura baahi oo maxaan ku dhahdaa keenta structureka xisbiguna runtii taas ayuu maxaan ku dhahdaa uu ku qotamaa oo ku salaysan yahay arrinta labaad hablaha waa run arrinta haweenkana waa tan markii hore aan ka hadalay hablaha doorkii ay ku lahaayeen siyaasadda reer somaliland guud ahaanteeda run ahaantii ma haystaan sababuhuna way fara badan yihiin annagu waxaan diyaar u nahay inaan hablaha reer somaliland aan soo dhaweyno aan fursad siino laakiin caqabadaha kale aan sheegayay oo run ahaantii fikrad baa jirtay anagu aanu mar iskuba dayno ah inaanu helo hablo intense jaamacadaha marka oo qolyo badan oo civil society-ga somaliland runtii aan kala hadlay qolyo badan oo international community-ga ah oo haweenka u ololeeyana aan kala hadlay in habluhu marka ay jaamacadda ka baxaan because haddii aanu qofkii siyaasaddii soo gelin oonu siyaasaddii xagga hoose ee grassroot level aanu kasoo bilaabin way adag tahay inuu xagga sare maxaan ku dhahdaa u yimaadaa marka si ay taasi u dhacdo
in incentives loo abuuro habluhu sida interns ay ugu shaqayn lahaayeen ay xisbiyada ugu iman lahaayeen ay researchers xisbiyada ugu noqon lahaayeen ay xisbiyada shaqada dheeriga ah ay qabanayaan ay qayb maxaan ku rahday uga noqon lahaayeen marka runtii hablaha iyo sidii waxa ay xaq u lahaayeen aynu u siin lahayn aynu u dhiirigelin lahayn waa shaqo adag oo inoo taala annaguna xisbi ahaan wixii hadda nagala gudboona aanu diyaar u nahay haddaanu dowladnimada nimaadnana haddii ilaha yidhaahdo insha allah aan diyaar u nahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay xogaye muna cumar soo dhowo muna may maqlaysaa waa tahay aan usoo laabto muna soo dhowo السلام عليكم ورحمة السلام يا دمانتين حقيقة وان سلام يا عبد القادر يا ديقو برامجك حديدنا يا waxaan doonayaa inaan ugu hambaliyo xisbiga wadani inuu noqdo xisbi siyaasadeedkii ugu horreeyay kalaab house yimaada runtii taas waxay muujinaysaa inuu yahay xisbi soo jeeda oo goobtii ay dhalinyaradu joogo iskeenaya maadaama muhiim tahay in xisbiyada siyaasadda iyo dhalinyarada ay isgaadhaan sheekaystaan si loo dhiso mustaqbal qurux badan oo somaliland halkay doonaysaa runtii su-aashaan qabay waxaa iga boobay ilka case waxaan doonaya inaan xogayaha weydiiyo uga faa'iidaysto inkastoo mawduuca ay ka baxsan tahay doorka haweenka waxa uga qorshaysan xisbiga wadani imika iyo markuu yimaado haddii uu ku guulaysto doorashada su-aashaydu taas ahayd aad mahadsantiin muna aad baad u mahadsan tahay xogay su-aasha muna aan kuugu daro su-aal kale oo ka timi maxamed sacad cabdiraxmaan wuxuu yidhi xisbi ahaan maxaa uga qayb qaadan laadihin wacyigelinta bulshada ee xanuunka halista badan ee covid-19 gacantaan furi doonaa asxaabta kalean soo dhaweynaya labadaa su-aalood baan kugu soo dhaweynaya xogay muna walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaantii de su-aasha waxaa soo celcelinaya muhiimadda ay leedahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay in haweenkeenu xaqa ay leeyihiin iyo doorka ay ku leeyihiin bulshadeena aynu siina run ahaantii manaha keliya taa in halka ay ka maqan yihiin siyaasadda oo keliya qaybo badan oo nolosheena iyo mujtamaceena ka mid ah ayay run ahaantii ka maqan yihiin oo la-aantoodna aynaan horumar gaari karin marka xaqiiqo lagu hadlo labor forceka iyo shaqaalaha haweenku aad bay ugu yaryihiin uga maqan yihiin haddii mujtamaceenu 50% yahay oo aynu nidhaahno 50% mujtamaceena ka mid ah ayaynu doonanaa inaynu idol ka dhigno aanay waxban taasi waxay tusaale cad u tahay inoo sheegaysaa inaynaan meel la gaari karin horumarna aynaan samayn karin ummaduhu waxay ku shaqeeyaan siday maximum output ama wax soo saarka ugu badan ay dadkooda uga soo saari lahaayeen ee ay uga heli lahaayeen qof waliba potentialkiisa iyo waxa ku jira awoodiisa iyo kartidiisa uu heli lahaa fursad uu dadkiisa ugu taageero uu qayb uga noqdo marka waan dareemayaa inaanay arrintaasi ay aad iyo aad muhiim u tahay inay soo noqoto su-aasheeduna ay daruuri tahay oo ay taasi keenaysa laakiin anagu intii aan hore u idhi de xisbi ahaan hadda iyo hadhowba run ahaantii dumarka iyo hablahaba inaan fursad siino diyaar baan u nahay haddana way xisbiga waa joogaan waa ka shaqeeyaan xafiisyadeeda waa joogaan maxaan ku dhahdaa xilal waa hayaan laakiintiise weli intii ku filayd maaha waan karsannahay inaan wax ka bedelo oo aan sii xoojinana runtii diyaar baan u nahay laakiin waxaan nahay xisbiga keliya taa ee hoggaankiisa maanta ay haween ku jiraan guddoomiye ku-xigeenadiisa ay haweenna ka mid yihiin ilaa iyo aasaaskii laakiin waan qirsanahay inaanay ku filayn arrinta wacyigelinta maxamed covid-19 runtii artu waxa ayaan daraa maanta in aan lana soconnaa inuu xanuunkii aad iyo aad ugu baahay somaliland xanuunkana aanu ahayn xanuun runtii si yaroo fudud ku tagaya xukuumaddiina orodkii maalmihii ugu horreeyey mooyaane intii ka dambeysay ay seexatay oo ay joojisay macluumaadkii ay dadka siinaysay iyo wacyigelintii ay dadka siinaysay iyo taageeradii dadka la siin lahaaba khatar weynna run ahaantii uu maanta bulshadeena ku hayo geeridii korodhay dadku xanuunku dhibaataynaya korodhay dhaqaalihii saameyntuu nagu yeelanaya ay korodhay wacyigelintiisa xisbiyada door ugama banaana waayo sababtoo ah waa shaqo fulineed
waxaana inoogu xil saaran dowladnimaduna isbarbaryaac maaha shaqada oo la isku qabsado maaha wacyigelinta jaangoynteeda iyo ka shaqaynteeda iyo qorsheynteeda xukuumadda ayaa leh khatar noocan oo kale ah marka ay jirto oo waa marka la yiraahdo crisis national crisis baa jira waxa waajiba cid kasta cidda hoggaanka haysa inay arrintaasi u daba fadhiisato wixii ay ka toosin karasana ay ka toosiso marka runtii xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa arrintaasi khatarteedii siday ahayd ugama jawaabin inay xukuumaddu dib arrintaasi uga fadhiisato dadka sidii loo wacyigelin lahaa wixii muhiima dadka maxaan ku dhahdaa xanuunkaa lagaga hortagaya loo samayn lahaa inay ku dadaasho dadka taagta daran sidii loo taageeri lahaa aad iyo aad baa mahadsan mustafa soo dhawow mustafaan soo dhaweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قلها وان سلاميا سيجارة وحن سلاميا محمد يري وكو سلاميا حوغيها قاركا إيدلي إي حوغيها قود لبضبا سيادان سلاميا هدان سؤاشي دا كسو دوادو حوغ هاي waxay noognahay Somaliland doorashadeeda imika golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waxa soo xula oo xisbiyada u keena xildhibaanada caaqilo si aynu uga gudubno arrinka oo aynu u helo dad aqoon leh oo khibrad leh sidee baynu uga gudbi karnaa in uu soo xulo caaqil oo qofkii shakhsiga isagu iskii uu isaga sharaxi lahaa xisbiguna uu u dooran lahaa qofkii matali lahaa uu ku kalsoon yahay dalkana dee manfac u yeelanaya sidee looga gudbi karaa waad u malaynaysaa mudane xoog haye su-aasheedu wataa asalaamu calaykum waraxmatullahi waa mahadsantahay mustafa suldaan jaahuur soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلامي بكايلا aad baad ugu mahadsan tahay kulanka caawad u sameeyay Somaliland xogay qadarna waan salaamaya golahana waan salaamaya inta kadib mid waa iga talo midna waa iga su'aal haddaan ku horeeyo talada markii xusbiga waddan waa xusbi qaran oo Somaliland dhan wada leedahay waana xusbi weyn taladeedu waxay tahay muxaafid iyo mucaaridba qofku markuu yimaado social media su'aalaha qaloocan ee ka imaan kara iyagoo ujeedaysan waa in laga feejignaado waayo dadka Somalilandarka ah waxay eegayaan qofka mas'uulka ah ee ama muxaafid ama mucaarad ah qarannimada inuu ilaaliyo marka in mas'uuliyiinta reer Somaliland mucaarid iyo muxaafidba markii ay golayaashan oo kale ka hadlayaan inay aad isaga ilaaliyaan su'aalaha ay ka jawaabayaan sida gobolada waqooyi iyo su'aalo la mid oo kale taas waa iga talo mas'uul walba oo Soomaali ama cid walba oo qaranka Soomaaliland ka hadlaysa waa iga talo taas su'aasha dan soo galo xog hay qadar waa nin aad u fircoon waan la soconaa waxaan su'aalayaa dhalinyarada Somaliland ee jecel qarankooda inay ilaashadaan inay xusbiga ku soo daraan ama ay dhiirigeliyaan si ay u noqoto dalku mid dhalinyaradan muwaadiniinta reer Somaliland ka ay hogaamiyaan waana mahadsantahay soo dhawow xogaya labada su'aalood aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar kale haddaan ku horeeyo mustafa run ahaantii waa run xaqaa'iq aanad kana gudbi karin baa jira laba arrimood baa had iyo jeer ishirdiya xaqiiqada iyo runta realityga iyo idealismka waxa la dhahdo iyo wixii aan jecel lahay ee ahayd inay ahaato waxaan jecel lahay oo ahayd inay ahaato in ay jirto nidaam maxaan ku dhahdaay dadku ay ku soo tartamaan ilaa iyo inta ay soo gaadhayaan inay murashax xisbiga ah noqdaan oo aan ahayn nidaamka qabaliga tusaale ahaan imika
maraykanka oo kale haddaad aragto waxay soo maraan qofku wuxuu doonaha u tartamay waxa la yidhahda primary elections oo level hoose maxaan ku rahdaa kasoo bilaabma waa system iyo nidaam la abuuray oo runtii dee gun weyn laho muddo dheerna soo jiray innaga levelka hoose ee primarygu unfortunately waxa uu noqday qabiilka waana xaqiiqo jirta oo haddaan israahdo dafir ama aan idhaahdo ma jirto ay noqonayso inaanan dadka run u sheegahaynin xisbiyaduna waxa ay ku qasban yihiin arto hoggaanka ayay tahay marka aynu maxaan ku rahdaa ka hadlayno isbeddel shaqada ugu weyn ay u taalla laakiin dadka siyaasadda ka shaqeynaya oo dhamina waa inay qayb ka noqdaan sidii isbeddelkaasi u dhici lahaa haddii maanta xisbiga is yiraahda intaa idealism kaa qaado ingiriiska waxaa jira xisbi la yidhahdo green party waxa uu leeyahay haddaad manifestkiisa iyo qorshihiisa green party akhrido qodob kaliya to aad ku diidaa ma jirto yani wanaagga iyo waxa uu dadka la doonayo iyo nolosha sida uu la doonayo laakiin intiisa haddana hal MB buu inta badan gudoomiyahooda kaliya taa baarlamaanka soo gaadha oo maxaan ku rahday ku guuleysta waayo afkaartooda oo dhan waxay ku salaysiin afkaar idealism marka xisbiyadii inay wadanka yimaadaan bay maamulka yimaadaan bay doonayaan kuraasidii baarlamaanka inay ku guuleystaan bay doonayaan marka xaqiiqadii waa inay la noolaadaan marka waxa weeyaan waa unfortunate reality waa xaqiiqo nasiib darro ah in doorka ugu weyn weli qabiilku uu leeyahay ilaa system kaa bedela la helana aanay isbedeli karin waxaanan qabaa waxyaabaha ay tahay inay muhiim tahay inay doodeenu noqoto systemkaa sidaynu u bedeli karnaa maalin keliya ta xisbinayntiisu soo taaga ma odhan karo qabiil oo dhan waan ignore garaynaya maxaan ku dhahdaa siyaasad idealistiga baan ku dhaqmaya dabadeetana waan guuleysanaya oo dowladnimadii baan soo gaadhay suurtagal maaha sidaasna uma shaqeyso laakiin tiise waa inaan dood isweydiino arrintaas sidee baynu u bedeli karnaa qofku inuu qabiilka ka xo sidee baynu u samayn karnaa runtii waana shaqo weyn oo dowladnimadeena u taala oo siyaasiyiinteena u taala oo mujtamaceena guud ahaan u wada taala waxaan filayaa labadiisa su-aaloodba soo jeedin bay ahaayeen oo inta hore aad buu ugu mahadsan yahay in maxaan ku rahdaa marka social media laga hadlaayo aan ilbaxnimada laga tegin qofku dee si akhlaaq iyo nidaam meel walba curfi baa jira wax la dhowro oo la ilaaliyo ayaa jira haddii uu qofku ama Soomaaliya joogo oo mabda'a Somaliland kasoo horjeedo ama uu Somaliland joogo oo maxaan ku dhahdaa Soomaalina isu tagto kasoo horjeedo habka uu fikradiisa u cabiraya inay noqoto hab akhlaaq leh oo dhaqan leh oo ixtiraamaysa curfiga iyo dhaqanka iyo dadnimada dadka uu maxaan ku dhahdaa la hadlayo iyo dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay doonayaan ixtiraamaysa marka runtii aad iyo aad buu Mustafa ugu mahadsan yahay haddii su-aashiisu i dhaaftayna waxaan codsanayaa in la igu soo celiyo anigu labadaba waxaan u fahmay inay soo jeedinahayd aad iyo aad baad u mahadsan tahay xog haye kamaal ayaan soo dhaweynayaa kamaal cali aad baan u salaamayaa madasha gudoomiye khadar iyo maxamed yuusuf keelo taadihinaya hadalka badin maayo su-aal baan galayaa mawduuca yara khusaysa inkastoo mawduucu ahaa dib baan kaga soo biiray doorka dhalinyaradu ku leedahay siyaasadda su-aasheedu waxay aada u khusaysaa labadan gole ee lasoo dooranayo bishan May ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka in golihii deegaanka saan ka arkay waxa weeye warqadii golaha commissionka doorashooyinku in golaha baarlamaanka lagu xidhay inay keenaan shahaado high school oo high school certificate ay yihiin qolada deegaanku inay keenaan bachelor degree so markaa su-aasheeda waxay noqonaysaa mar haddii hay-addii sharci dejinta ugu sarreysay dalka oo baarlamaanka ah oo qaranku soddonkaa sano fadhiidka ahaa oo 10 waxa weeye mashruuco khaldani mareen iyadoo loo aaneynay dadka hore joogay sidee maanta oo 2021 ku jirno u nidhaahnaa qoladan bedelaysa waa qolo high school ah oo ognahay in doodo badan oo cilmiyana iyo waxyaalo badan laga baas kareynayo say suurtagal u tahay miyaan taasina hanjab ku ahayn doorkii dhalinyarada ku lahayd siyaasadda aad baad u mahadsan tahay kamaal oo su-aal muhiima oo mawduucana khusaysa weydiiyey xogayaha ibraahim cabdi ayaan soo dhaweynayaa labada su-aalood ayuuna xogayuu ka jawaabi doonaa ibraahim haddaad maqlayso soo dhowo asalaamu calaykum aad baan idin salaama kulligin insha allah waa lay maqlaa
si wanaagsan soo dhow xogeeyaha laba su-aalood baan weydiinayaa. su-aasha koobaad waxa weeyaan adduunka dal walba ka jira wuxuu ku dadaalaa laba system oo caafimaadka iyo waxbarashada. labadaas systemna dalkeena way ku liitaan. xogay sidaan wax uga qaban karaynaa labadaas system aan u develop garan karaynaa labadaas system dhallinyaraduna sidaan uga qayb qaadan karaynaa labadaas system dibhabeentooda. su-aasheeda labaad waxa weeyaan hantidhoorka qaranka xisbigiinu wadani wada shaqeyn muu la leeyahay? asalaamu calaykum, aad baan salaamaya. waa tahay xogaya soo dhowow. aad baa u mahadsan tihiin. haddaan kamaal ku horeeyo, waa run, waa su-aal aad iyo aad u muhiima, dad badanna in badan ay runtii isweydiiyeen. marka laga hadlayo waxbarashada shuruudaha, xeerkan waxaa la sameeyey hartu dhowaan baa la sameeyey cusub. xeerkan waxa uu digrii ka dhigay shuruudaha waxbarasho ee qofka u ordaya doorashooyinka deegaanka ee degmooyinka eeda ah oo ah Somaliland 7 magaalo: Boorama, Gabiley, Hargeysa, Berbera, Burco, Erigaba iyo Laascaanood. sababta uu u bedeli waayey ta kale waxay ahayd dastuurka ayay ku taalaa. dastuurka waxa ku yaala shuruudaha laga doonayo qofka baarlamaanka. marka dastuurkoo la furo mooyaane taa lama bedeli karo. waana xaqiiqo jirta oo dadkoo dhan ay wada dareensan yihiin. waynagii ka hadlaynay inay